بسم الله الرحمن الرحيم. aad baan idin salaamayaa bahda saxaafadda Somaliland. maanta waxaan halkan ku qabanayaa oo ka sii deynayaa baaqnabadeed aan u dirayno labada shicib beelood ee walaalaha ah ee ka tirsan gobolka Sool ee colaadu ay ka dhex socoto. labada beelood waxaan leeyahay dad fara badanina ku yidhaahdeen muddo badan oo horena lagu soo yidhi waxa lagama maarmaana in maxaan ku dhahdayay colaada la afjaro, xabadda maanta socota in la joojiyo, dadka shicibka ah in loo turo. laba isku degaana baa tihiin, laba dhaleeyaa baa tihiin, labada isku noola baa tihiin. shareecada islaamka ilaahay qur-aanku soo dejiyey, sunnihii rasuulka calayhi salaatu wasalaam labaduba waxay ina farayaan in colaada la joojiyo. dhaqankeena wanaagsanina ee reer Somalilandna wuxuu ina farayaa in la wada noolaado, in colaada la joojiyo, in sidii caadiga ay ahaan jirtay laba isu abtiya iyo laba isu sodoga iyo laba isu seedeeya iyo laba ilmaabtiya iyo laba habar wadaaga bini aadmiga intii ismanafacadsan jirtay inay ismanafacadsadaan. labada beelood waxaan xasuusinayaa ee u sheegaya colaadan maanta socotaa waxay bilaabantay 2002 ilaa 2002 dadaal aada u fara badan ayaa dowladda Somaliland dowladihii kala dambeeyay ilaa iyo xilliyada xilalka soo hayay dadaal aada u fara badan bay ka sameeyeen. ciidamada qaranka ee jamhuuriyadda Somaliland dadaal aad u fara badan bay ka sameeyeen iyagoo raacaya oo fulinaya siyaasadda iyo qorshaha iyo awaamiirta xukuumadahooda. inta jeer ee colaadaas la isaga yimi ee la idin dhex galay ee go-aamo laga soo jeediyey ee aad qaadateen na waa garanaysaan. waxa u dambeeyey kii hadda maalintii u dambeysay laascaanood aynu joognay halkaa laga jeediyey baaqiisii oo kuwan iminka ay hor yaalla arrinkaa wuxuu ku dhacayaa waa mas-uuliyad daro, wuxuu ku dhacayaa waa xanaano la-aan, wuxuu ku dhacayaa waa dulqaad la-aan, wuxuu ku dhacayaa wax laga heshiin karo oo waayeelka iyo waxgaradka iyo garaadada iyo cuqaasha iyo culimada ay intuba ka heshiin karaan in maxaanku dhahdayay aan la siinaynin jaanis, aan wakti la siinaynin in laga heshiiyo. waxaan leenahay markaa colaada ninba inan baa ku dhashay inan baa ku dhintay inan kuma dhasho. waxaan leenahay colaada ha la joojiyo. gaar ahaan hadda iminka intii hawshaa lagu jiray odayaasha iyo waayeelka labada dhinac min koob iyo 20 qof ayaa la dhaariyey, iyagaa nabadii saxeexay, iyagaa mas-uuliyaddii qaaday. mas-uuliyaddii way idin saaran tahay raggiinii waayeelka ahaa ee arrintaas saxeexayo. dhallinyarada waxaan leenahay dagaalka shalay iyo maanta dhacay iyo kii ka horreeyey 8 bilood muddada socday iyo kii ilaa 2004 socday dadka ku dhimanaya 99% waa dhalinyaro mustaqbalkeedii leh, waayaheedii leh, quruxdeedii leh, maxaan ku dhahdayay dhallinyaronimadeedii leh. dhallinyarada waxaan leenahay dadkana ha la aqbalo, colaadana ha la joojiyo. waxaan ku soo ururinayaa colaadani iskama socoto, colaadani iskama dhacayso
colaadan dad baa hurinaya colaadan hurinaya dadka colaada hurinaya waynu hawshooda waynu arki doonaayo waynu geli doonaayo talaabo waa laga qaadi doonaa laakiin waxaan leenahay aakhire iyo iftiinka midna waxba kama helaysaan ragga colaada hurinayo colaada joojiya baaqa labaadna waxaan u dirayaa qurba jooga labada beelood waxaan leenahay qurba jooga labada beelood degaamadiina waa ka warhaysaan beelihiina iyo dadkiinu halkay degan yihiinna waa ka warhaysaan meelaha laga abaabulayo ee taakuleynada laga soo dirayana qurbaha ka mida waxaan leenahay saaxiibayaal walaalayaal degaamada dadku ay degan yihiin taakuleyn colaad lagaga huriyo uma baahnee waxay u baahan yihiin taakuleyn waxbarasho caafimaad harumar lagaga sameeyo ayay u baahan yihiin adduunyada dhulalkii ilbaxnimadu ay muddada taariikhda dheer ka soo jirtay baa joogtaan waxaan jecelahay arrintaa in aad joojisaan waxaan jecelahay arrintaa in aad iska kaashataan waxaan ku dhahdayay deegaamada horumarkooda ee aydan ku tartamin oo aydan ku kala qaybsamin deegaamada colaadooda taakuleynta loo hurinayo waxaan leenahay ilaahay talada toosan hayna waafajiyo ilaahay idinkana talada toosan hayna waafajiyo dadka gacanta ku haya arrinkaa ilaa iyo maxaan ku dhahdayay 2002 ilaa iyo muddada ay soo jirtay cidda qoriga hawsha wax ka qabadkeeda iyo diyaar garowgeeda iyo dhex jooggeeda iyo hawsheeda jirtayna waxay ahayd maamuladii kala dambeeyay ee dowladda Soomaaliland ilaa iyo imika wixii loo adeegsanayana ciidamada ahayd hawsha waxaan leenahay waxaan labada beelood ahayn ee degaamada kala ah ee gobolada kala ah aynu guddigeena isugu tagno inaynu colaada joojino cid waliba gacanaha ka geysato colaada waxaan leenahay hal la joojiyo nabad arrinta dib ha loogu soo dabaalo aad iyo aad baa u mahadsantahay